kusoo dhawaada muuqaal kale oo cusub. maanta muuqaalkeen wax ku saabsan yahay buugaagtii ugu saameynta badneed ama buugaagtii ugu faa'iidada badneed aan 2024 akhriyay maadaama 2025 galay. muuqaalkan waxaan jeclaa maalin hore inaan soo duubay laakiin waqtiga ayaa i saamixi waayay. muuqaalka daawasho wanaagsan baan leeyahay. haddaad ku cusubtahay channelka kusoo dhawow gacmo furan. haddaad hore la joogtay like-ta commentiga naga ilaawin. kusoo dhawaada buuggeena ugu horeeya maanta soo qaadan doono waa quwat al-caadaad bala dhahaa. buuggan 2012 ayaa la qoray. wallahi buuggan waa buug aad iyo aad u fiican. qof waliba doonaya hab dhaqan cusub yeesho, caadooyin cusub yeesho, waliba caadooyinkaaga si yacni aad xoojiso sidoo kale hadaad doonaysid muxuu ahaayey waa laasim inaad akhridaa buuggan. wuxuu ka hadlayaa sheekooyin buu kusoo qaadanaya tusaalooyin ah. wuxuu kusoo qaadanayaa fikirkaaga sidaad u bedel habtay ficilkaaga, si naftaada xamaasad ugu geli habtay waxaas inaad qabatid. waxaa kale kusoo qaaday sidaad naftaada ugu abaal mari habtay. buuggan waxyaalaha kale ku jeclaaday waxaa ku qoran mar waliba mudbuuc ama ku dhameeyo ama page ka dhameeyo xagga hoose waxa ku qoran astaghfirullah atuubu ilayka subxaanallah alxamdulillah. mar waliba dikriga ilaahay buu ku xasuusinaya markaad yacni صفحة قارة دمسيد وحاسو كرتنا عاديات بوناكسي واي مرولي بذكر إلهي كحاسوسي بوقت كلا تجمع أما بوقت نكى تجمع يعني وكسو قري بوقت كلا تجمع أنا لكسو قري يا رجالي واي مرولي بذكر إلهي كحاسوسي أديكو عادة عصمنا سمي بوك آخر السرية وقت كان كفايسة أنا مرولي هذا حقردت مرولي يعني حق وصل قرن تستغفر الله يعني ولو استغفرت إلى فضل بدن ومرولي بالآخرنا لكن ما كبوق آخريس أنت بدو يكون يرتين تحسدي استغفرت هذه مركا والله واحد هذا يسوي تبهد بوقن حيالك لو كهذا اللي حجرته dadkii guuleystay oo kasta ay ku tusaale ka soo qaaday hab dhaqan cusub iyo dadkii inuu xayaro badan buu ka hadlay. buugga wallahi buug aad iyo muhiima. talabaad carabigu ku qoran yahay aad iyo aad buu fudud yahay, qof waliba waa akhrisan karaa carabigiisu. buuggeena labaad aan soo qaadanayno waa garaasho internet kursan. buuggan uu ka duwan yahay buugaagtan sanadkan akhriyay. buuggan waxa weeye buug lamaana ah, laba qof oo doonaya nolol wadaagaan amba muxuu ahaayey xiriir walaal leh mustaqbal iska muxuu ahaayey iska rajayaya inay su'aalahan oo kale isweydiiyaan inta shukaasigu ka xumaanabay amba 7 sano shukaasi habtay amba 8 sano aanad qofkan wali baranin. qofkana yacni maaha muhiim inaad wali baratid laakiin su'aalahan haddaad weydiisid si sax ah qofkana si daacad ah kugu jawaabo qofkaad baran karta qofkaaga ma yahay mise maaha waad يعني واد كده حركي كرتا. سؤال بدن باكوتشرا بوكا حاجة دقالة حاجة ماموكا حاجة أبوارنتا حاجة خلافات كحاجة قرشين كوح بدن باتشرا سؤال بدن ونو كهالله سؤالها صدق هذا السويديو جوابه في على إسكبحيو قفلي وقفك كذا وفهمي كرا مسكوري معها مستقبل في عنا ولا دسي كرا بوكن حتى حكو جرتا قابك صلاة استقارة لو تكدو مواضيع مهمة بكو جرتا. بوكا والله هو بوك آدياد مهمة قفولي بكردونا بعرف دونا انو اخري قريب. بوكا مبارك حد با قريب. بوكا وبوك آدياد لو يبسدي السنة دي ودنبايي آد با لو يبسدي دنيارد آد با يبسدي laakiin buug aad iyo aad muhiim aniga xaqeyga ayuu ka ahaa. wax badan waan ka faa'iiday akhrisinta su'aalo badan oo muhiim ahna waan ka dhex faa'iiday. kitaabkeena saddexaad waxaa la dhahaa fadaayaat al-khaarijiya wa istikhdaamaat saliima amba saalima. kitaabkan waxaa qoray Dr. Maxamed. kitaabkan wuxuu ka hadlayaa nus qarni ayuu ka hadlayaa 40 sano ayuu ka hadlayaa. waxaan qarnigu ka hadlayaa waxa qarnigii 20aad bilaaninka sidii dayax qamareedka u sameysteen fikradii lahaa dhibaatooyinka noo keenay faa'iidooyinka ku qabno casrigu si isku bedelay qarnigii 20aad ilaa wixii ka dambeeyay oo dhan waxaasoo buu ka hadlayaa dayax qamareedka ugu horeeyay dawladihii lahaa ka qayb qaatay miisaaniyada ka soo xorootay waxaasoo buu ka hadlayaa. wuxuu ka hadlayaa qarni dhan kala barkii ayuu ka hadlayaa
afartan sano oo tijaabo la waday oo lagu guuleystay ayuu ka hadlay kitaabkan aad iyo aad buu muhiim u yahay aqoon guudna uu kaa siinayaa oo kaa qarsoonood sheekooyin xataa aan maqalnay oo laakiin si kale u maqalnay ayaa ku dhex jira buugan 412 page ayuu ka kooban yahay buugan marka aad iyo aad buu muhiim u ahaa inaan akhriyo inunkana aad ka faa'iidaystaan baan rajeynaya kitaabkan ku xiga waxa weeye raxiiq maktuum baa la dhahaa kitaabkan waxaan bilaabay bishii 6aad bishii 9aadna waan dhameeyay marka kitaabkan wuxuu ka hadlayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qaabku soo barbaaray dadka ka qayb qaatay qasawaadihii markii nabiga waxiga uu ku soo degay ka hor kadib wax badan buu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa siirad nabiga ayuu weeyay kitaabkan wallahi wax badan oo qisas ayaa ku duugan aayadaha quraanka kariimka goorta ku soo degeen taariikhdii islaamka ka hor islaamka kadib wax badan buu kitaabkan ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa qasawadaadkii ama dagaaladii nabi maxamed iyo dagaaladii gaaladii muslimiinta la galay intii maxaa qaabkii wax waliba u faahfaahin oo ka hadlayaa kitaabkan aad iyo aad buu muhiim u yahay qof waliba muslima inuu akhriyo raxiiq maktuum baa la dhahaa kitaabkan aad iyo aad baan wallaahi ugu riyaaqay in badan baan raadinay laakiin waan helay ugu dambeyn kitaabkan ugu xiga waxaa la dhahaa idaarat fi islaam baa la dhahaa maamulka islaam ayaa la dhahaa maamulka dowladda islaameed ayaa la dhahaa kitaabkan wuxuu ka hadlayaa maalgelinta dhaqaalaha ganacsiga dowladda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam siduu maamuli jiray tiirarka ku taagneed khilaafada raashidiinta tiirarka ku taagneed waxyaalihii la cooshi jiray aayado quraan ku soo dhiishay xadiis buu ku soo dhiishay wallahi kitaabka waa dowlad caadi in jaamacadaha lagu dhigo ayaa muxuu ahaayay muhiim tahay laakiin si wanaag kitaabkan muwaadiic aad iyo aad u muhiim ayuu ka hadlayaa dhaqaalaha dowladda hoose shaqadeedu waxay tahay dowladda wasaaradda dibadda shaqadeedu waxay tahay goorta la bilaabay xiriirinta bulshada dhaqaalaha wax kasta oo ka hadlaya deegaanka bulshada sida muxuu ahaayay lagu shaqeeyo wax waliba uu ka hadlay kitaabkan 4 sano jaamacada wallahi buugaraad akhrida waa ka filan baan maanayaa waayo kitaabkan waa 300 dheeraadkaas wallahi haddana uu ku soo koobaya muwaadiic muhiim ayuu ka hadlayaa insaaniyadu ka hadlaya mujtamaca aad iyo aad buu muhiim u yahay inuu qof waliba akhriyo kale uu ka hadlaya waa siyaasadda aad iyo aad siyaasadda wuxuu jiray kitaabkani muwaadiic muhiim oo ka hadlaya kitaabkeena ugu dambeeyo waxaa la dhahaa fan laa mubaadala kitaabkan wuxuu ka hadlayaa yani kitaabkan qofka akhriya ayuu la hadlayaa wuxuu la hadlayaa kitaabka ugu iibka badnaa dhowrkii sano u dambeeyay 10 sano u dambeeyay kitaabkan muwaadiic muhiim ayuu ka hadlayaa qofka waliba shakhsiyan ayuu qofka la hadlayaa qiimaha maxaad u taqaantaa tijaabada maxaad u taqaantaa wax badan ayuu ka hadlayaa waa kitaab wallahi أنا كل واحد بدل ما كفايدة كتبتنا ردنا عن لو ذا قاعد إحدى كتب أو كتبتنا آخرية كتبتنا حق بدنا كفايدة إنه يكمديهن قيمة محاول تقانتها بكتابك حتى كهضيع مركا كتبتنا قلت ومهم إني معايا داخلت ولو في عينهن كتبتنا كتمك فن مبادرة وعندنا إن شاء الله مرة بعدين أكون نقضي آخرية تبغى آخرية كتاب كانوا كتولاد يطبخ وحبا ما كفايدة وحبا أيا يعني واعقلين مصحادي واعقلين فكر ويا كتب فن لا مبادرة سوق في صومالي وجرا سوق في عربي وجرا مركا حرج لي داخلتي كيكو فضود به كتبتن هرا ما أخرضي لو كون شرعتك كم كو قرشي سنتين داخلتي هذا هرا أخرضي واحد كفايدة إنه لو ذاك كتبت هذا وقاعد أحكي فايدة لو تكون يفرطنك أتجعلها بتنا كل آخرنا أنك كفايدنا لو ذاك كم تيجا قد ما صنت يداوش هذا مقالك سلام مقالك الدكتور حكاية كل مدونة نبت كديو